madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa habeenkii xalay kula hadlay boqolaal Soomaali ah howlka shirarka jaamacadda Azhar ee dalkani Masar. Munaasabadda uu madaxweyne Farmaajo kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar waxaa soo agaasintay safaaradda Soomaalida ee magaaladan Qaahira, waxaana goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaaladan Qaahira Cabdiqani Maxamed Wacays. madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Masar. dalka aan joogno waa dal taariikh dheer lahaa ummadda Soomaaliya. magaca Soomaaliya uusan bixin ayay xiriir lahaay. waa la socotaa intayna taariikhda soo qabtaa boqoradii halka ka joogtay oo dalkaa xukumaysay 1000 sano iyo ziyaadaba laga joogo ayaa Puntland dhulka hadda la yidhaaho tagtay. waa la socotaa. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo hadal dheer ka jeediyay munaasabadda ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ugu baaqay inay joojiyaan tahriibka. waxaan rabaa inaan u hadliyo dowladda Masar Egypt sida wanaagsan ay ii soo dhaweysay. soo dhaweyntaas waa ninkaas kale ummadda Soomaaliyeed yaa soo dhaweeyey iyo idinka oo halkan martiyu ah qaarkiina ay hadday yihiin qaar badan ka shaqeeyaan kuwa kale waa tahriib laakiin yaa bixi walaalaya tahriibka iska dhaaf. inta xafladda ay socotay waxaa munaasabadda lagu soo bandhigay hees uu ku luqeynayay fanaanka weyn ee Axmed Naaji Sacad. Hussein Sahnuni VOA Qaahira.